السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada mar kale iyo sheeko xigmadeedka laga sameeyay xayawaanka balse geesta kale haddaad ka eegto bani aadamka laftiisa qaarkii aad sooranaysaba dhanka damaca waa iskaga mid dacwadu waa xayawaan damac badan sida lagu yaqaano mararka qaarkood xoolaha oo dadkii ay la joogaan oo daaqaya ay geesta ka soo gashaa way cunta mararka qaarkood xoolaha yaabay xerada guntiisa ugu soo gashaa xilliyada habeenkii qaarkood haddaba maanta sheekadan ama sheeko xigmadeedkan waxaynu ugu magac darnay dawacadii dibka la'ayd maalin maalmaha ka mid ah ayaa dawaca isku dayday inay tagto oo ay wax soo cunto xoolo soo cunto waxay gashay beertaasi waxay lahayd dalool yar oo aad u cidhiidhiya laakiin beerta gudaheeda waxaa daaqayay xoolihii markii ay gashay ee ay xoolihii istiraacuun ayaa xoolihii lagaga soo qayliyay oo dadkii meesha joogay ay ka rideen daloolkii bay istiri ka soo bax naxdintii daloolkii ayay meel adag gashay waxa ka go'ay dibkii dacwadii aad bay u warwartay waxaanay ka warwarsanayd wixii ay ku odhan lahayd marka ay kaynta ku noqoto dawacooyinkii kale iyo xayawaankii kale ee meeshaasi joogayba markii iyadoo dibla ay ku soo noqotay way yaabeen waxay ku yidhaahdeen maxaa dibkii kaa jaray dacwadii waxay u sheegtay in dibku markii horeba uu culays ku hayay sidaa daraaddeedna ayba iska soo jartay markaas waa ay qiimeeyeen waxaanay eegeen inaanayba faraxsanayn markaasay yidhaahdeen haddii culays kaa degay maxaa wejigaaga muruga uga muuqataa taasi waxay ku tusaysaa in mararka qaarkood bani aadamku hadallada ay leeyihiin aanay ka turjumaynin ficilada ay samaynayaan oo haddii ay isleeyihiin been sheega aad wejigooda ka akhrisan kartid sida ay wax u jiraan intaas ayaan kusoo koobaynaa sheekada gaaban ee xigmadda ah ee aynu ku eeginay dacawadii dibka lahayd amaba ciwaankeedu ahaa dacawadii dibka lahayd inta sheeko kaloo kale aan ku kulmi doonno waxaan dhammaanteedii kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu